farqiga u dhaxeeyo iyo kala duwanaanshaha application-kan cusub ee Threads iyo Twitter. Shirkadda Meta ayaa waxay soo bandhigtay application cusub oo ay kula tartamayaan Twitter-ka. Application-kaasna waxaa lagu magacaabaa Threads. Fastest growing app of all time. Threads, the social media platform launched by Meta to rival Twitter yesterday. Mark Zuckerberg's company Meta has launched its new app that's expected to compete with Twitter, which has faced backlash under the ownership of Elon Musk. Haddaba application-kan ayaa noqday kii ugu saameynta badnaa abid teknoolajiyadda caalamka. Muddo 24 saac gudahood ayuu ku helay 2 milyan oo isticmaalayaal ah. Isla shalaydaana Mark Zuckerberg wuxuu sheegay in application-ka cusub ee Threads uu kor u dhaafay 70 milyan oo isticmaalayaal ah, taasoo ka dhigayso abkii ugu soo booqashada badnaa abid. Haddaba maxaa ka dhigay Threads hadalhaynta teknoolajiyadda caalamka? Twitter-kana waxay sheegeen in dacwad maxkamad ay ku furi doonaan shirkadda Meta siiba application-kan cusub ee Threads. Dagaalka teknoolajiyadda iyo social media meel xasaasi ah ayuu marayaa. We are launching Threads, an open and friendly public space for conversations. It takes the best parts of the Instagram experience and creates a whole new app around text, ideas, and sharing what's on your mind. Zuckerberg last night on the launch of Twitter rival Threads. The watch is on to see how the company may monetize that new app and how it might disrupt the ad market. Jim, 15 million signups. Magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. Muuqaalkeenan waxaan uga hadlaynaa kala duwanaanshaha labadan application. Threads oo hadda 5 maalin oo kaliya hawada ku jiro iyo Twitter-ka iyo sidoo kale qorshooyinka uu damacsan yahay Mark Zuckerberg waliba uu ka damacsan yahay mustaqbalka social media. Inta aanan u guda galin dagaalka social media ee u dhaxeeyo Mark Zuckerberg iyo Elon Musk oo ay isku hayaan Twitter-ka iyo Threads, waxaa maalmahan la hadal hayay labada nin oo bilyaneerada ah in dagaal feer ah iskaga hor imaan doonaan. Baraha bulshadan waxaa qabsatay Mark Zuckerberg iyo Elon Musk inay isku ballansadeen dagaal feer ah, ayagoo isku soo jawaabayo fariimana isku soo dirayo. Sidoo kale waxaa soo muuqanaysay oo baraha bulshada lagu arkayay Mark Zuckerberg oo tababar ku jiro oo lagdinta iyo feerka practice gareynayo. Sidoo kalena Elon Musk asagana dhinaciisa ayuu ka watay tababarka. Ayadoo meeshaas lagu mashquulsan yahay ayaa hal mar waxaa soo baxday Mark Zuckerberg inuu soo bandhigay application-kan cusub ee lagu magacaabo Threads. Waxayna sheegeen in application-kan uu kula jiro shirkadda Twitter ee uu leeyahay Elon Musk. Haddaba hal mar ayay dadka ku wada yaaceen application-kan. Asagoo 2 saac oo kaliya hawada ku jiro ayaa waxaa ku soo biirtay 1 milyan oo isticmaalayaal ah. marba marka ka sii dambeysana isticmaalayaasha way sii ziyaadayeen, wuxuuna noqday application-ka ugu soo booqashada badnaa abid ee teknoolajiyadda. Wuxuu iskoorka ka jabiyay ChatGPT oo muddo 5 maalin oo kaliya ku helay 1 milyan oo isticmaalayaal ah, laakiin application-kan cusub ee Threads waxay ku qaadatay in 1 milyan oo isticmaalayaal uu helo 2 saac oo kaliya. Haddaba markaad iska diiwaangeliso oo appkan gudihiisa aad soo gasho, waxaad u malaynaysaa ama ku shakinaysaa inaad ku dhex jirto Twitter-ka, sababtoo ah Twitter-ka ay isku qaab yihiin. Wuxuu leeyahay calaamad u eg oo shabahado retweet-ka marka lagu jiro Twitter-ka. Midda u sahashay application-kan inuu helo isticmaalayaal aad u fara badan, wuxuu kula xiriirsan yahay ciwaanka Instagram-ka. Haddii aad leedahay account Instagram, kaliya application-kan aad la soo degaysaa automatic ayuu u samaysmanayaa, kaagama baahna inaad geliso username iyo password. Instagram-ka profile-ka bio-gana wuxuu kuu soo saarayaa number ku xiriirsan linkiga account-ka Threads. Numberka account-kaaga Instagram-ka ka muuqdana wuxuu ka turjumayaa waqtiga aad ku soo biirtay ciwaanka Threads. Mark Zuckerberg ayaa ah qofka koowaad. Dadka isticmaalayaasha ah sida u kala horeeyeen ayuu cadeynayaan lambarkan. Anigana waxaan nasiib u yeeshay oo aan ka mid ahay dadka ugu horeeyay oo ku soo biiray. Algorithm-ka iyo qaabka u shaqeynaya Threads, haddii aad haysatay ciwaankaaga Instagram-ka dad followers ah oo kugu xiran, isla markiina meeshan way sahlan tahay in dadka ay ku soo follow gareeyaan, asaga si automatic dadka kuu tusayo, isla markiina way sahlan tahay in followers aad ku hesho ciwaankan Threads. Dhinaca kale Twitter-ka ayadana aad ay u adag tahay in followers-kaaga aad koriso. Inaad 1000 followers hesho Twitter waxay kugu qaadanaysaa waqti aad u dheer, laakiin ciwaankan cusub ee Threads 1000 followers waxaad ku kasban kartaa saacado ama maalin gudaheed. Waana algorithm-ka ay ugu talagaleen inuu u shaqeeyo appkan. Isla shalaydan Mark Zuckerberg wuxuu sheegay in application-ka Threads uu kor u dhaafay 70 milyan oo isticmaalayaal ah. Haddana saacadaha soo socda waxaa suuragal ah in 100 milyan oo isticmaalayaal ah kor u dhaafo. Sidoo kale Zuckerberg wuxuu sheegay application-kan hadduu 1 bilyan oo isticmaalayaal uu helo inuu u furi doono monetization-ka, qaab lacag looga sameeyo appkan. haddaba waxaad moodaa Twitter-ka in meeshaas looga adkaaday oo dadkii oo dhan ay u soo jabeen ama soo aadeen application-kan cusub ee Threads. dadkana aad ay u xiiseynayaan maadaama uu cusub yahay, qof walbana uu leeyahay followers badan ku samaysa meeshan si aad caan uga noqoto. laakiin dhinaca kale aad ay u adag tahay in Twitter-ka aad ku samaysato followers badan ama aad hesho. lawyer u hadlay Twitter-ka wuxuu sheegay in dacwad maxkamad ay ku furi doonaan shirkadda Meta, waxayna sheegeen inay koobiyeen nashqadii Twitter-ka
oo abkan Threads haddii aad soo gasho waxa uu la qaab yahay sida Twitterka sidoo kale midda ay Mark Zuckerberg ku haystaan waxay sheegeen inuu social media u isticmaalayo qaab monopoly ahaan ah ama inuu isla heesiyo wax walba oo social media ah. And cosmetically, it is very, very similar to Twitter, which is probably what's led to Twitter firing off this legal letter to Meta. Ninkan Mark Zuckerberg wuxuu ka soo bilaabay Facebooka 2014 ayuu iibsaday WhatsAppka sidoo kale Instagramka ayuu gatay wuxuuna isku dayay inuu gato Snapchatka laakiin waa laga diiday. waqtigii koronaha 2020 waxa soo baxay oo dadka aad u isticmaalayeen applicationka Zoom oo waagaas aad caan u noqday wuxuuna isku dayay in applicationkaas uu gato asagana waa laga diiday. ninkan Mark Zuckerberg wuxuu damacsan yahay wax walba oo social media inay hoostiisa imaadaan oo asaga u taliyo waana mid lagu eedeynayo qaab monopoly ahaan ah inuu isticmaalayo social media. sidoo kale wuxuu koobiyeeyaa oo soo guuriyaa nashqada applicationada kale ee teknolojiyadda. Snapchatka ayuu ka soo minguuriyay ama ka soo koobiyay storyga sawirada ama muuqaalada la soo dhigayo oo 24 saac kadib meeshaas ka baxayo. wuxuu ku bilaabay Messengerka sidoo kale Instagramka nashqadaasna wuxuu ka soo xaday Snapchatka hadii aad sawir soo dhigtay storyga 24 saac kadib in sawirkaas uu meesha ka baxayo. sidoo kale TikTokna wuxuu ka soo koobiyay ama ka soo xaday nashqadan muuqaalada halka minid ah. wuxuu ku bilaabay Facebooka qaab reels ahaan ah sidoo kale Instagramkana waxay leeyihiin muuqaalo hal minid ah oo reels ah meeshaasna waxa laga soo xaday ama laga soo koobiyay TikToka. midda kale oo ayadana mudan in laga hadlo oo la cadeeyo Mark Zuckerberg iyo shirkadiisa Meta waxay la safan yihiin garabka dhinaca bidix waxayna aaminsan yihiin fikradan khaniisnimada ama qoomuluudnimada in dunida laga gado. Facebook iyo Instagramka kaga hadli kartid waxyaabo ka soo horjooda ama lid ku ah dadka khaniisiinta ah ciwaankaagana waa ay ka xirayaan oo xor uma tihid fikradaada inaad ka hadasho. aniga ayayba igu dhacday oo ay igu qabsadeen sanadka hadda la soo dhaafay gabagabadiisa waqtiga World Cup-ka uu socday oo lagu qabanayo wadanka Qatar waxaa taagneed dagaal ka dhan ah wadanka Qatar oo lagu la dagaalayay maxay u diidayaan qoomka khaniisiinta ah. anigana Facebookayga meelo badan ayaan comment ka bixiyay anigoo ku dhigan dadkan khaniisiinta ah. Facebookana waxay ii soo direen digniin inaan joojiyo waxyaabaha aan wado ama commentiyada aan bixinayo inay yihiin commentiye hate speech ah. sidoo kale Facebooka kaga hadli kartid waxyaabo lid ku ah Yahuudda markay gumaad u geystaan muslimiinta Falastiiniyiinta ah haddii xitaa aad isku daydo inaad soo qaadato calanka Yahuudda adigoo soo qorayo qoraal lid ku ah Yahuudda Facebook oo ay ku qabsanayaan ayagoo kugu eedeynayo inaad lid ku tahay saamiyadda. meeshaasna waxaa ka muuqato in shirkadda Meta iyo wiilkan iskale Mark Zuckerberg inaysan dhexdhexaad ahayn oo ay la safan yihiin garabka bidixda fog. laakiin dhinaca kale Twitterka Elon Musk wuxuu gatay Twitterka laakiin gadashadiisa ka hor Twitterka waxay ahayd meel ay haystaan dadkaas khaniisiinta iyo Yahuudda ayaa haysata Twitterka waagaas oo haddii aad isku daydo in wax yar oo dhaliil aad u soo joodiso ciwaankaaga waa laga xiriyay. laakiin markuu gatay Elon Musk Twitterka wuxuu ka dhigay meel qofka fikradiisa si xor ah ugu soo gudbisan karo. Twitterkan waxa ka bilaabatay in dadkan khaniisiinta aad loola dagaalamo waliba Elon Musk wuxuu u fasaxay filimkii meel walba laga soo diiday YouTube-ka iyo meelaha kale in Twitterka la keeno oo la fasaxo filimkii ka hadlayay khaniisiinta ama ciwaanka u ahaa What's a Woman. filimkaas ama documentary-gaas oo noqday kii ugu daawashada badnaa abid. Elon Musk waa nin iska diido fikradda dadkan khaniisiinta ah halka Mark Zuckerberg uu la safan yahay dadkaas. xisaab ma laha dadka ciwaanadooda laga xiray Facebook iyo Instagramka waxaana ka mid ah Andrew Tate oo lagu eedeeyay inuu gudbinayo waxyaabo khaldan. shirkadda Meta kama jirto xornimo laakiin Twitterka waxa ka jirto xornimo. meeshaasna waa farqiga u dhaxeeyo Twitterka iyo Meta. muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay.